caku iyo cakwiya sowma nacin caasi iyo eersi rag cayaayid iyo boob miya'na la collaysiiyey camaado qanacaaliya dhul sow canug hallayn maayo carruur dharagtay caaniya haruur laga ciraab roon ee dunida ciirtay qaar baa ka hari cawasay tahay cilowba eey tala xumaan ciribta may saartay war carrada eebbahay nabad kobaan ugu carraabayno oo aynaan caruusiya ahayn sida tancaar googa carbal hela cadceed iyo cadceed kobaan ka caynsaaro istayaal sidaad ku maqasheen barnaamijkii toddobaadkii hore noloshiisa inteedii badnayd hadduu raago ogaas ku tilmaanaa gabyaa xagga nabadda u xagliya qamaan bulxanna sidoo kale ayuu ahaa barbaarnimadiisii warar badan kama hayno gabayadiisa qaarkoodse waxaa laga garan karaa inuu ahaa nin garaad badan oo maansayahanadii la xilliga ahaa ka fiiro dheeraa wuxuu ahaa nin fakera oo waayaha dunida u warhaya maantaas uu joogo nin aan walwalkiisu ku ekayne had iyo jeer maamiya waxa timaadada dhici doona amaba dhici kara wuxuu ahaa nin saadaalin kara dharaartaas falka lagu kaco beri ka maalin wanaagga ama xumaha laga filan karo dhacdooyinkii uu u soo joogay ee bulshada raadeeyey ama inta ka horreeyey uu maqlay ayuu tixa shiiqsi leh ku taariikheeyey tixa ay murtiyi muush ka tahay oo ilaa maanta ay soomaalidu jeceshahay kuna maahmaahdo qamaan waxaa laga hayaa gabay qurux badan oo uu ku taxaayo guuldarrooyinka colaadda laga kororsado waa gabay uu ku hiifaayo nimankii uu ka dhashay markay dagaallo joogta ah ka bixi waayeen markay dhac iyo duulaan dhaqan ka dhigteen dhammaan qabaa'ilkii la deriska ahaa markay godab ka wada galeen ninkii ama raggii ay dileen ee gacantooda ku baxay markay ka garaabi waayeen oo magtii lagu yeeshaba ay dafireen intaasba markuu inta ka waaniyey ay ka hoos qaadi waayeen ayuu tiriyey gabaygan aan kol dhow qaar tudciyadiisa ka mid ah idiin marin doono qamaan gabayga ugu furfuranayaa canaan uu dusha kaga tuuraayo ragga qaar uu caamo ku tilmaamayo kuwaasoo aan war iyo wacaal u haynin nabaddii ay maantaa ku naaloonayeen hawkarkii uu isaga qamaanihi ka soo maray waayo aragnimadiisa ayaa bartaye wuxuu iyagana barayaa in khasaare mooyee dheef loogu xisho aan colaadu lahayn xoolaha ayaa ku yaraan dhulka la daaqsado ayaa ku soo koomi roobkaa gabaabsii markaas bay abaar gaagmareebta ahi ku baahi giddi arliga ay degaan ee toga faafaneed ku teedsan dabadeedna caws ay xooluhu afka la aadaan iyo biyo ay ka waraabaanba waa lagu diimi wuxuu nimankaas ay xigaalka yihiin kula talinayaa waa buuxaanoo maanta waylada yihiin inay cagta dhigaan ayna ilaashadaan wiilasha tirada badan iyo caanaha heeshiga ah ee ay haystaan wuxuu yidhi caawa iyo maanta nabsigu waaba can yahaye waa caamo nimankaan ogayn ceeg markaan tegaye iyagoo cayilay bay arkeen ciidna laasimay cawaweer cisho iyo fii dagaal cadow isboobaya celiid kulul cagaag iyo rasaas camal la baynuuno ciwal gabanahoo loo xishiyo caafimaad ma leh cuudkoo yaraadiyo dhulkaas soo ciriiryamayey cirkood roob ka weydo iyo abaariya camimi faafe cawskiyo biyaha yaa engegi ceelka buuxsamay intaad caano iyo wiil tahay yaa lala cabsoodaaye waxba calaacal kuma yaal haddii cayr lagaa dhigo cadaabkii ma iibsado nimaan caadilkii badin waxa ugu dambeeya ee gabayga wuxuu qamaan mar kale ku haaraamayaa nimankii sida fudud iyaga iyo dariisyadooda colaadda u dhex dhigay kuwaasoo uu ku tilmaamayo carruur inta caloosha buuxsatay aan duni iyo xaalkeed warba ka haynin gabagabadana wuxuu u doortay su'aal uu isla kuwaa ku weydiinayo isagoo ku leh dabuubtaydu inay tahay rumbiya kama dhibcaana waxaad ku garataan waxaad geysateen awgood carbal farta iigu fiiqa bari iyo galbeed waqooyi iyo koonfur dhulka eebbe meel inoo nabad ah meel aynu tan uga guuri karayno ama uga roob raaci karayno oo aana iyo godobi aana inoo ool wuxuu yidhi caku iyo cakwiya sowma nacin caasi iyo eersi rag cayaayid iyo boob
miya'na la collaysiiyey cammaado qanacaaliya dhul sow canug hallayn maayo carruur dharagtay caaniya haruur laga cihaab roon ee dunida ciirtay qaar baa ka hadi cawasay tahaye cilowba eey tala xumaan ciribta may saartay war carrada eebbahay nabad kobaan ugu carraabayno oo aynaan caruusiya ahayn sida tancaar googa carbal hela cadceed iyo cadceed kobaan ka caynsaaro cabdi maxamed awmagan oo cabdigalayax loo yiqiinay wuxuu ka mid ahaa maansayahanadii soomaalida ee qamaan ka dambeeyey dhallinyaronimadiisii wuxuu ku caanbaxay gabayada iyo geeraarada guubaabada ah ee barbaartu kolkay maqasho inta buruuraan ay hubka boobi jireen dhammaadkii haddaba 1950nadii ayaa galbeedka dalweynaha soomaalida gaar ahaan ceelgaab dhulka lagu magacaabo waxaa ka dhacay dagaallo dhex maray gabyaagu reerka uu ka dhashay iyo qolo ay daris ahaayeen goobo dhowra oo nindoor miiran lagu gabawaday ayay isku haleeleen dhiig baa daatay magihii baa la isu diiday xoolana waa la kala qaaday dabadeedna waxay arrintaasi la xumaatay xaaji diiriye xirsi oo ka mid ahaa odayada xisbigii SYL isla markaasna ka tirsanaa gedislaydii waaweyneyd ee xamar wuxuu qaadan kari waayey iyada oo 2-3 sano oo qurihii ay calansaarkii ka dhiman tahay in colaadihii toltolka ee dabin ay leegadu caburisay ay soo noqdaan sidaa darteed wuxuu xaajigu abaabulay oo xamar ka diray erga labada qolo nabad dhex dhigta taasoo qoladii cabdigalayax ku hormartay gabyaaga oo tallaabada xaajiga la dhacsan ayaa haddana ku jiray raggii laxaajoodka ergada loo soocay markiibana nabadii ay soo jeediyeen ayuu hawraarsan iyo guddoon kaga jawaabay dabadeedna maalmo kadib ergadii oo qoladii kale ambabax u ah ayuu ugu sii dhiibay gabay dheer oo si walba uga duwan kuwii lagu yiqin gabay uu ku tirinayo dhibaatooyinkii ay colaaddu sababtay iyo sida taban ee dad iyo duunyaba ay labadooda dhinac u saamaysay waxaa gabaygaa ka mid ahaa niman yahu mahtarakaa dhacdoo madhay raggeennii malkadaan istaagaba ninbaa mayle oo gagane madaxdii lalaah iyo intii magaca dheerayd ee malyan baa ku lumay weeradii laysu maamulay ee alla ilaahe macaash lagama helin amase maamuuse mashaqada dhexdeennaa nin dayey muuse nowdhididii magtii laysu diiday iyo xaqii muuqan kari waayey marindhaafka iyo aabigii la isku maagaayey muslimkii la gooyiyo dadkii maanka ka coloobay mabda'ii la eed xaajadii murugtay waagii masqarooyin badan baana galay tan iyo maantii iyo miyi iyo magaalaba arlada loo mushtari waaye mucsur weeye nimankii lahaa maalka xoogga leh ee moorooyinkii buuxi jiray madhay adduunkii iyo makasta iyo ninkii maanyar baa moog wixii dhacaya inay dunidu meekhaan jabtay yaan maragu haystaayebi waxay ahayd 1958 maalintaas baana colaadii labada qolo u dambaysay